guurtida xafiiska xaqsor iyo odayaasha iyo weliba maayirka cusub ee degmada ceelbe ee gobolka Sanaaga ayaa waxa ay sheegeen haddii ay urushaan xoolo ay kaga qayb qaadan doonaan ciidamada jiida hore ee dawladda Puntland Soomaaliya ay u soo ururaan xoolahaasi inayna gacanta u gelin doonin gudoomiyaha gobolka Sanaaga Maxamuud Ismaaciil Jaamiciyoon ay haddii ay xoolahaasi markaas ay gacantooda ay soo galaan balse ayna wali ururin ay imanka ku tala jiraan inay urushaan in ay si toos ugu gelin doonaan maamulka sare ee heer caasimadeed ee dawladda Puntland Soomaaliya inay xoolahaasi gacanta u gelin doonaan waa xilliga ay markaas u soo qabsoontee waxayna sheegeen inay hore markaas uga noqdeen kalsoonidii gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Jaamiciyoon waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur degmada ceelbe gobolka Sanaag bilaabo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli iyo wasiirka daakhilka inaanu Ismaaciil ciidan inaanu matelin oo aanan hay'ada noo keeni karin oo aanu matelin oo aanu kalsoonidii kala noqonay mar hore sidaana waxaan ugu kalifay waana gooyay wixii maamuladu keenaan nooma keenin haddaanu shicibka nahay ceelbe degmada ceelbe ninkaa waxna loo ku dhiibi karo iyo meteluna meteli karo midna ma jiro sidaas ha la ogaado hay'adana aanu noo keeni karin yaa maamulka Puntland madaxweynaha Cabdiweli Cali Gaas iyo wasiirka labadaba barasaabka annaga xilkii waa mar hore aan kala wareegnay xil nooma hayo sidaa la adsigeed abaaraha dadka soo maray waa la hayaamay galbeed baa loo hayaamay bari baa loo hayaamay dantiisu wati wax danuu noo hayay ma jirto markaa nin naga tirsan maaha shaarku annaga noo siiyey waa kala baxnay madaxweynaha Cabdiweli iyo wasiirka ku xiga nimanka madaxda u ah dowladda Puntland waxaan u sheegaynaa ninka la yiraahdo ciidan oo degmada baramood jooga oo gobolka Sanaag ka tirsan inaan wax allaale wuxuu noo hayaa aanay jirin oo aan wixii annaga xil uu noo hayaa inaanay jirin baan u idiin sheegaynaa waa ogeysiis dhaba